in la fuliyo ballanqaadyadii uu madaxweynaha u sameeyay beesha war-saxaafadeed taariikhda 9kii bishii 8aad 2026 ujeedo cabasha beesha Cabdalla Caroone ee ku wajahan dawladda federaalka Soomaaliya kulan ay isku yimaadeen waxgaradka iyo dhaqanka beesha Cabdalla Caroone oo rumuud u yahay nabadoonka guud ee beesha ayaa looga arinsaday tabashada beesha ee ku aadan xuquuqda iyo matalaadda siyaasadeed ee ay ka tirsanayso dawladda federaalka Soomaaliya kulanka kadib beesha Cabdalla Caroone waxay soo saartay qodobadan beesha Cabdalla Caroone waa bilweyn kamid ah beelaha Harti Abgaal kuna dhaqan labada shabeelle iyo gobolka Banaadir beeshu waxay leedahay taariikh dheer ee ku saabsan halgankii iyo gumaysidiidkii iyo kaalintii ay ka qaadatay galeelida dawladnimada Soomaaliya beesha waxay cadeynaysaa inaysan helin tixgelintii iyo matalaadii ay mudneed intii lagu jiray labada xilli uu mudane Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayay dalka iyadoo horey loo dhaawacay matalaadii soo jireenka ahayd ee beesha ee golaha shacabka sanadkii 2012 saddex beesha waxay ka xun tahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uusan beesha u muujin qadirin iyo tixgelin inta ay mudneed taasoo bedelkeeda ay dareemayso in fursadihii ay beesha ka heli lahayd dawladda federaalka Soomaaliya loo leexiyay isla beelihii sadbursiga u qaatay matalaadoodii beesha Cabdalla Caroone waxay door weyn ka qaadatay dawlad dhiska Soomaaliya iyadoo ku weysay wiilal iyo gabdho qiimo badan oo naftooda u horay difaaca qarannimada iyo nabadgelyada Soomaaliya beeshu waxay xustay inay tahay beesha kaliya ee kamid ah beelaha Harti Abgaal deegaankoodu yahay mid xur ah beesha Cabdalla Caroone waxay taageertay dhameystirka dastuurka iyo hirgelinta doorashada qof iyo cod ah oo wado dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa beesha la kulmay in ka badan 4 jeer kulamadaas waxaa kamid ahay maalintii xukuumadda la magacaabay xilligaas oo ay jireen ballanqaado iyo heshiisyo la xiriiro arrimaha beesha hase yeeshee nasiib darro ballamo badan uu madaxweynaha u sameeyay beesha ilaa hadda ma aysan fulin ugu dambeyn beesha Cabdalla Caroone waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha iyo dawladda federaalka Soomaaliya in la fuliyo ballanqaadyadii uu madaxweynaha u sameeyay beesha isla markaana dib u eegis dhab ah oo cadaalad ku dhisan lagu sameeyo matalaadda beelweynta Harti Abgaal gaar ahaan marka la eego doorashada soo socoto beesha Cabdalla Caroone waxay mar kale cadeynaysaa inay taageersan tahay nabadda iyo dawladnimada ee dhameystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay rajeynayso in tabashada beesha loo wajaho si cadaalad iyo wada tashi iyo is ixtiraam ku dhisan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh